السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حكسده برتنا كلا سؤال لنا وحكسده أوفيشال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ما أنتم حنسيل احتباحنا برامج كأنها دقمة نوعيضة waxaan ku guda jirnay saddexdii ugu horeysay ee da'aleedahay maanta ninka aan ku guda jirno inaan faraqeyno waa ninka la yiraahdo dareen leh ereyga dareen waxa weeyaan qof kasta uu iska dareemi karaa macnihiisa iyo waxa uu ku fadhiyo marka doqonta ayada markaan sifayno noocyada ay leedahay lagu garan karo waxa kamid ah in had iyo jeer dareen uu ku abuuran yahay oo shaki baas uu ku abuuran yahay 24 saac ay ku qufulan tahay in ma garanaysaa asaga uu la haysto la xamanayo labadii qof ee meel wada jooga ee wada sheekeysanaya waxa uu arkaa in asaga ay ka sheekeynayaan labadii qof ee saaxiibta ee maartay uu karko garanaya ama dariskiga wuxuu u qabaa in ay asaga ku yihiin cadow ee asaga ay u heshiyeen sidoo kale waxa weeyaan wuxuu 24 saac iska dhaadhiciyaa labadii qof ee wada qoslaysabo in asaga ay ku maqan yihiin ay wax ka sheegayaan sida darteed ay ku qoslayaan waxaana had iyo jeer isku arkaa asaga in inta kale ay yihiin cadaawadiisa ee qofka kaliya la beegsanaya ee cadow lagu yahay inuu asaga yahay sidaas lamid ah ehelkiisa marka ehelkiisa aan ku leeyahay waxaan kala jeedaa xaaskiisa 24 saac wuxuu ka sheegaa waxaysan u qalmin ama aysan ahaynba wuxuu yiraahdaa islaantaydu waa tan waa wasaqad waa la waxeeyaa dad bay la socotaa nin bay jeclaatay nin bay raaci rabtaa nin bay saan 24 saac sida ayada aan buu maartaa ku dhagan yahay waa doqonta la yiraahdo dareen leh inkastoo hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ay nafariso in ninka naagtiisa uu u maseero oo xumaha in ajabe raacdo in ma garanaysaa ay la fariisato inay la qosasho inay meel la marmarto inkastoo ninka ragga inuu ka damqado diinteena nafariso haddana macnaheedu ma ahan in maartay aad ku been abuurato qofka bani aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka dhowray wax adiga aad ku tilmaamayso آيات قرآن إلهي سبحانه وتعالى وحكول هي سورة الحجرات آيات 12 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات وحي كهذا ليس إن وسنقفك لأ بني آدم ومسلم وسنقبين أبورا وحوصن هنا وكشيغ sidaa la ajigeed hadii aad tahay qofka calaamadahaas leh ee xaaskiisa 24 saac ka shakiyo ee labadii qof ee sheekaysanaysa ka shakiyo ee maartay hadii jeer u arka in asaga uu cadow lagu yahay in ma garanaysaa labadiis wada socoto asaga u heshiyeen labadii wada hadlayso in asaga haystaan hadii aad tahay ninka calaamadaha ay ku qufuran yihiin waxaan rajaynayaa hadii aad maartay clipkan uu soo gaaro daawato inaad sifooyinka ayaga aad ka digtoonaato sidii aad kaga baabi'in lahayd aan ku dadaasho waxaan rajaynayaa niman saaxiibanahay ee asla garanayno nin calaamadaha asaga oo khaas ah ee 24 saac ka shakisan in maaragtay asagu un maaragtay umada kale ay ku maqan tahay labadooda socoto wada sheekaysanayso saaxiibka halkaan aan ka salaamaya kilibkan hadaad aragto waxaan rajaynayaa inaad qosli doonto wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh